deeqdan oo ay ku soo tabaruceen walaalaha jaaliyada reer Kuwait ee ka soo jeeda deegaanada Laascaanood iyo Gaalkacyo waxaana gudoomiyay agaasimaha Cisbitaalka Laascaanood Ismaaciil Muuse Ciise iyo Dr. Cabdi Maxamed Buraale oo iyagoo uga mahad celiyay deeqdan la soo gaarsiiyay Dr. Cabdi Maxamed Buraale ayaa mahad celin kadib sheegay in loo baahan yahay sidii loo soo caawin lahaa dadka bukaan jiifka ah ee ku jira qaybta TB-da oo ay la soo diristay qoodin la'aan dhanka cuntada ah kana codsaday inay bulshadu soo caawiyaan sidoo kale waxa halkaas ka hadlay Jibriil oo ah mas'uulkii loo soo wakiishay deeqdan lacagta sheegay in walaalaha jaaliyada ay ku soo tabarucay ugu tala galeen bukaanada ku jira Cisbitaalka Laascaanood si loogu daryeeli lahaa anta Cisbitaalka Laascaanood waxa soo gaadhay lacag ah oo ka timid jaaliyada degan reer Kuwait ee degan ee ka soo jeeda Sool iyo Gaalkacyo ka soo jeeda ayaa lacag u soo deeqay bukaanka Cisbitaalka Laascaanood jiifa lacagtii weyna soo gaadhay waa baahi weyn oo joogta ah bay noqotay cisbitaalka in bukaan jiifka loo habeeyo raashinka ay cunayaan qada iyo quraac iyo casho hadba wixii loo heli karayo marka sida runta aad baan ugu mahadnaqnaa وانا سو gaadha lacag ka timaada banaanka deeqdan waxa soo dhiibay jaaliyadaha Kuwait khaasatan waxa soo dhiibay jaaliyada gobolka Mudug Gaalkacyo gobolka Nugaal Garowe iyo gobolka Sool Laascaanood ayaa soo dhiibay waxayna ugu tala galeen laba dhakhtar oo dhakhtarka weyn ee Laascaanood iyo waxay qaybiyeen dhakhtarka Buuhoodle marka qaybtan halkaan loo dirto ku wareejinayna waxay waa qaybtii loogu tala galay dhakhtarka Laascaanood waxaan u leenahay jazakumullahu khayran Allah idin barakeeyo maalkiyo السلام عليكم guntiya gabagabadii waxa halkaas ka hadlay agaasimaha Cisbitaalka Laascaanood yaa si weyn uga mahadnaqay cid kasta oo tabarucaad soo gaarsiisa bukaan jiifka ku jira Cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood runtii inta ay sheegeen dhakhtarka iyo wadaadka Jibriil oo ka mas'uulaha lacagta loona soo wakiishay inuu soo gaarsiiyo meesha loogu tala galay runtii hadalkii way dhameeyeen sida ay sheegeen aad baan uga mahad celinaynaa dadka deeqdan soo gaarsiiyay isbitaalka ee ugu tala galay dadka tabaalaysan ee jiifa isbitaalka Cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood qaybta TB-da ayaa dhibaato weyn oo dhanka cunno yaraan ayaa la soo diristay muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo mas'uuliyiintan ay codsadeen in laga soo caawiyo sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha iyo cuntooyinka ay dadkaasi ku cuni lahaayeen dawooyinka Cabdikariin Olol Somali Channel TV xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool